بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada Iiraan oo sheegaya in muwaadiniinta dalkiisa uu siin doono lacag kuman kun oo dollar qofkii soo dila ama soo qabta askari Amerikaan ah dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ayaa isna sheegaya in dagaalkii ay la galeen Mareykanka iyo Israa'iil ay ku guuleysteen wasiirka mayalka adag ee amniga qaranka u qaabilsan Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inuu riixayo in gabi ahaanba Israa'iil ay qabsato Mareykanka Gaza habeen kastana la dilo 30 ilaa 40 Falastiiniyiin Xuutiyiinta Yemen oo sharuud adag ku xiray inay fasaxaan maraakiibta Sacuudiga uu leeyahay ama la xiriirinayo ee gooshaya badda Cas waxaana tani ay ku soo aadeysaa iyadoo dagaalo iyo duqeymo kala duwan ay ka socdaan waddanka Yemen dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa Axmed Maxamed Cade oo wararkan isku soo duway ayaa inoogu bilaabaya qodobada wararka kuwooda ugu doorka roon Maxamed militariga Iiraan ayaa ku dhawaaqay in ay lacag 30,000 oo dollar siinayaan qofkii muwaadin ah oo dila ama qabta askarta Mareykanka abaalmarintaasi ayaa laab noqonaysa hadii qofka hawsha fuliyay uu yahay qof dumar ah taliyaha ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ah Amir Hatami ayaa sheegay in qorshahaasi la diyaariyay markii codsiyo badan ay yimaadeen si looga qayb qaato taageerada dhaqaale ee la siinayo muwaadiniinta naftooda huraya sida lagu xusay warbaahinta IRNA waddanka Iiraan lama yaqaano in ciidamada Mareykanka lugta ay ka howlgaleen waddanka Iiraan intii dagaalka bariga dhexe socday bas ahaatee xaalad waxaa jirta bishii Abriil diyaarad laga soo riday waddanka Mareykanka nin dowliye ka ahaa la isku dayay in la badbaadiyo Hatami wax faahfaahin oo dheeraad kama bixin halka iyo meesha maxaabiista Mareykanka lagu dilay ama lagu qabtay ama la filayo inay ka dhacday cid la ogsoon yahay oo la dilay ama la qabtay oo gacanta Iiraan ku jira ma jiraan inta uu dagaalka socday waa sida hadalka loo dhigay afhayeenka gudoomiyaha baarlamaanka ama afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan Maxamed Beger Qaliba ayaa sheegay Iiraan in ay gaartay guul siyaasadeed iyo mid military colaadii ay dhawaan Mareykanka iyo Israa'iil la gashay wuxuuna ku dooday in dowladda Mareykanka iyo Israa'iil ay ku guuldareysteen inay meel mariyaan hadafyada ay dagaalka ka lahaayeen sida warbaahinta Iiraan ay soo xiganayso Qaliba ayaa sheegay guuldarrada Mareykanka iyo Israa'iil u soo hoyatay ayaa waxa ay ahayd in ay gaari waayeen hadafyadii ay dagaalka ka lahaayeen waxayna la kulmeen jab aad u weyn wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi inay ahayd mid fulinimo ah wuxuuna ammaanay shacabka Iiraan sida ay adkaysiga iyo iska caabinta u muujiyeen Qalibaaf ayaa sidoo kale ku tilmaamay is-afgaradkii Mareykanka iyo Iiraan dhex maray inuu ahaa dukumeenti caddaynaya sharafta iyo guusha waddanka Iiraan wuxuuna sheegay diblomaasiyadaasi in ay sii xoogaysanayso guulaha aan dagaalka ka sii hooyinay waa sidoo hadalku dhigay militariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen Abu Xasan Cala oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mas'uul sare oo ka tirsan ururka Xisbullah garabkiisa Badr kadib markii ay weerar ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Al-Zahrani koonfurta Lubnaan bayaankan militariga Israa'iil soo saareen ay ku eedeynayaan Deir al-Cala in uu qorsheynayay ay wadayna howlgallo ka dhana ciidamada Israa'iil oo ay ku jirto inuu weeraro ku qaadayay asagoo adeegsanaya diyaarado drones oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ciidamada Israa'iil ee ka howlgalaya koonfurta Lubnaan militariga Israa'iil faahfaahin dheeraad kama bixin natiijada weerarkaasi iyo inay xaqiijiyeen in Cala la dilay in kale ururka Xisbullahna wax hadal oo ka soo baxay oo andacooshaha militariga Israa'iil la xiriira ma jiro dhaqdhaqaaqa
xuutiyiinta ee ansaarullah ayaa ku xiriirinaya in ay xanibaadda iyo go'doominta maraakiibta Sacuudi Arabia ka qaadayaan oo keliya marka la soo afjaro howlgallada military sida warbaahinta lagu xusay. kooxdani ayaa ku tilmaantay duqeynta ay duqeeyeen shirkadda ugu weyn ee Aramco ee dalka Sacuudi Arabia kaabayaasheeda iyo bartilmaameedyo kale ee Sacuudi Arabia ku yaalo in ay tahay tilaabo isdifaacid ah halkii ay ka ahaan lahayd meel weerar. Xuutiyiinta ayaa sheegay in howlgallada military ay sii socon doonaan marka laga gudbo cadaadis caalami ah in ay Xuutiyiinta la kulmayaan. waxayna intaas ku dareen in aynan Xuutiyiintu isticmaalin awoodooda oo dhan. Xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay inay ka tixgelinayaan dhaqdhaqaaq military ka socda deegaanka Al-Jawf maamulka caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen gobolada Maghrib in ay joogaan ciidamo lagu xiriirinayo Sacuudiga. bayaankaasi ayaa waxa uu daba socday iyadoo ciidanka Sacuudigu ay ku duqeeyeen hubka artilleriga gobolka Baaqim ee degmada la yiraahdo Sacda. wasiirka xagjirka ah ee amniga qaranka ee Israa'iil Ben Gvir ayaa si furan ugu baaqay in la dardargeliyo dilka iyo barakacinta joogtada ah ee dadka marinka Gaza ku nool. waxa uu sheegay waa in la bartilmaameedsadaa dadka Gaza ku nool, waxaana dhiirigeliyay in habeen kasta 30 ilaa 40 Falastiiniyiin la dilaa. isagoo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxa uu sheegay dhammaan reer Gaza waxa waajiba dhulkooda in ay noqoto dhul ay Israa'iil leedahay. bayaankani ayaa waxa uu quseynaya dhammaan marinka Gaza halka uu ugu baaqay dadka Falastiiniyiinta ah in lagu dhiirigeliyo inay ka guuraan ama ka barakacaan marinka Gaza. wuxuuna ballan qaaday in caalamka oo dhan uu madaxa mijaha loo rogi doono lana layn doono dadka Falastiiniyiinta. Ben Gvir ayaa dhiirigeliyey in la daldalo dadka Falastiiniyiinta wuxuuna ku celiyay Falastiiniyiinta ma istaahilaan buu yiri inay noolaadaan, halka uu qirtay in uu ku faraxsan yahay dhibaatada xanuunka badan ee haysata dadka Falastiiniyiinta. wuxuuna ku doodayaa dilka toogashada ah ee Falastiiniyiinta lagu soo rogay waa sida keliya ee cadaalad lagu heli karo. wararka caalamkana waxaa ka mid ah 5,000 oo qof ayaa laga bixiyey ama laga kaxeeyey dhulgariir 7.7 cabirkiisu yahay ka dhacay bariga dalka Indonesia. halkaasna waxaa ku dhintay baa leeyahay ugu yaraan 53 qof, waxaana xirmay wadooyinkii dhulkana uu baaddoomay sida ay mas'uuliyiinta wadanka Indonesia sheegayaan. waxayna intaas ku dareen 130 qof ayaa dhaawacmay oo jajab iyo dhaawacyo kala duwan ay gaareen. dhulgariirkan ayaa ka dhacay koonfurta bari ee Asia ee wadankan ku yaala Indonesia, waxaana dhimashadii ugu badnayd ay dhacday 2022kii dhulgariir kale oo ku dhuftay galbeedka Java. in ka badan 3,300 oo qof ayaa ku dhintay gobolka Siqa oo ka mid ahaa meelaha dhulgariirkaasi uu saameynta weyn ku yeeshay. waa hagaag waxaad waa mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. waxaan u gudbaynaa daawadayaal falaqaynta wararka iyo wixii warar ee degdega ee soo kordha ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. hagaag maxamed, arrimahan aan ku bilowno. waxaad moodaa tan iyo 2 toddobaad ugu dambeeyey hadallada ka soo yeeryeeraya si gaara toddobaadkan Iiraaniyiinta inay yihiin hadallo cadcad oo cid guuleysatay loo fasirayo. waynu maqlaynaa abaalmarinta gudoomiyaha baarlamaanka, waynu maqlaynaa hadallo adag bay jeedinayaan. xalay waxaa hadlay Ibrahim Azizi oo baarlamaanka ka tirsan oo Trump u jawaabaya oo yiri intii aad Hormuus isku daynayd inaad qabsatid adigu naftaada ka fakar, ha ku dhuumanin gawaarida cuntada lagu qaado diyaaradaha lagu geeyo. marka maxay qubarada ka leedahay hadalladan Iiraan ka soo yeeraya iyo mowqifkan sii fogaanaya? marka laga gudbo wararka ka soo baxaya wadanka Iiraan oo ah inay guul cad sheeganayaan
maraykanka oo muddo dheer ku hayay cunaqabatayn iyo daandaansi joogto ah in ay jebiyeen iyaga iyo Israa'iil dagaalkii ugu dambeeyey laguna tilmaamay dagaalkaasi inuu ahaa dagaal fulaynimo ah maraykankana uu dalbanayo xabad joojin iyo nabadayn weeye wararka ka soo baxaya dhanka Iiraan dhanka maraykanka khabiirada waaweyn ee la fagura arrimaha siyaasadda juqraafiyeedka kulli waxay isku raacsan yihiin in ciidankii maraykanka uu jabay dhibaatada ugu weynna ay haysato ciidamadii ku sugnaa ama ay gaartay wadamadii gacanka ku yaala ee saldhigyada militariga oo maraykanku lahaa warar kale oo soo baxayna waxa ay ku tilmaamayaan khabiiradaasi ciidamadii badda ee maraykanka inay dhibaato xoog la haysato qaar badan inay la kulmayaan culaysyo fara badan sida tusaale ahaan uu hadalka u dhigayo nin senatora oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo Robin Galgow la yiraahdo ayaa waraysi uu siiyay mid kamid ah warbaahinta wadanka maraykanka waxa ugu baaqay Congress-ka in ay dirsadaan wafdi booqda markabka diyaaradaha qaada ee Abraham Lincoln maraykanka dagaalka gacanka loo diray si loo soo ogaado badmaaxyada ciidamada badda maraykanka ka tirsan saska iyo nafshidka uu ku dhacay saaran markabkaasi qaar kamid ah warbaahinta ayaa ku waramaysa askartaasi qaar badan oo kamid ah inay isku dayeen in naftooda gooyaan saraakiisha qaarna waxa ay xaqiijinayaan inay jiraan tiro kamid ah askartaasi in ay qabaan xaalado xagga dhimirka ah waxa ayadana uu ku tilmaamay in ay tahay dhibaato weyn in maamulka maraykanku uunan qorshaynin dagaalka wadanka Iiraan qorshihiisana uunan haynin sidii uu dagaalka uga bixi lahaa waxa intaas dheer inuunan fahamsanayn sida uu dagaalka u dardargelinayo iyo dhibaatada uu leeyahay Galileo waxa uu kaloo sheegay in Trump maamulkiisa uu isku dayayo kuna rajo weyn yahay dagaalka in uu soo afjaro laakiin qalalaasaha Venezuela kale ayuu ku qalday waxaana muuqata in ciidamada maraykanka ay dhibaato xoog leh ka soo gaartay dagaalkaasi ninkan senatorka ayaa hoosta ka xariiqaya in hoggaanka wadanka maraykanka aan kalsooni lagu qabin isla markaasna dadka oo dhan ay aaminsaneen waxa ka soo baxaya gaar ahaan xogayaha dagaalka ee wadanka maraykanka oo la sheegay in uu hoggaan u noqdo wasaaradda dagaalka ee wadanka maraykanka inuuna u qalmin madaxweynaha maraykankana waxa uu ku tilmaamay in uunan muujinin mas'uul in uu ka yahay nafta ciidamada maraykanka ee dagaalka bariga dhexe la geeyay wuxuuna sheegay Trump ayaa u arka askarta bariga dhexe joogta in ay yihiin agab ay caruurta ku cayaaraan oo uu isku tustusayo caalamka in maraykanku uu awood weyn leeyahay xaalkuna uu yahay mid aad iyo aad ugu raacan waa gartay maxamed haddaynu dul istaagno ninkan hadalkiisa hadal adag buu jeedinayaa Trump uu durayaa wuxuu leeyahay qalabka caruurta ka ciyaarto ka dhigtay ciidanka maxay ka turjumaysaa arrintan marka maamulka maraykanka wararka ay siinayaan warbaahinta iyo baraha bulshada waxa uu ku qorayo madaxweynaha maraykanka khabiiro badan ayaa qaba inay xaqiiqada ka fog yihiin maraykanka dagaalkan uu bilaabay 28kii February ilaa iyo haddana wax guul oo ka soo hoyay lama arko qasaaraha iyo dhibaatada gaartayna naf ahaan ilaa iyo ciidan 18 ah ayaa maraykanku qirsan yahay dhaawacana ilaa iyo 500 ayaa warbaahinta maraykanku ay qoraysaa laakiin xaqiiqada dhabta ah ee dhimashada jirta lama oga laakiin ninkan senatorka hal soo golo joojiya ayuu leeyahay wafdi loo tiro xaaladda ka daba taga marka taa laga gudbo maraykanka agabka militariga uu ku dagaalamayo ayaa la sheegay maraakiibtii waaweyn ee diyaaradaha qaadi jiray in lagala baqayo ilaa iyo 700 kilomitir meel u jirta in lagu hayo xuduudka wadanka Iiraan ee xagga badda ah waxaa intaa dheer maraykanku in dagaaladii ugu dambeeyay oo dhan inuu diyaarada isticmaalay gantaaladii ay ka dhamaadeen sida warbaahinta maraykanka ay qorayso wax kastoo ay tahay Iiraan uma muuqato in ay u naxariisanayso maraykanka oo ay ku fogeynayso
khabiirada qaarna waxay leeyihiin iiraan waxa ay rabtaa xaaladda khatarta ah ee waddanka maraykanka ka jirta ee doorashada ah in madaxweyne Trump uu fashilmo waxayna rabaan in ay ku sii dheereeyaan xaaladdan ismariwaaga ah. Maraykanku warar badan ayuu soo saaray in wadaxaajoodyo ay wada hadallo socdaan. Dhowr goor ayaa madaxweynaha Maraykanku ku andacooday inuu gacanta ku hayo marinka Hormuz, laakiin kulli waxaa la isku raacsan yahay marinka Hormuz inuu gacanta ugu jiro waddanka Iiraan. Iiraanna ay wararka ay soo saarto uu yahay warar biyo kama dhibcaan oo la xaqiijin karo. Dhanka Maraykankana waxa weeye wararka waa la maaraya sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan. Weliba kuwa aqoon-yahanada ayaa ugu daran oo ku sheegaya madaxweynaha Maraykanka inuun ahayn in uu abaanduulo u noqdo ciidamada Maraykanka. Sababaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah in madaxdii ciidamada khabiiradii ciidamada dadkii xogagaalka u ahaa arrimaha Iiraan inuu la tashado diiday. Waddankana waxa uu ku hogaamiyay baa leeyahay dagaal aan lahaynin khidadii lagu dhamayn lahaa iyo qorshihii lagu dhamayn lahaa iyo awood wax lagu muquuniyo intaba uuna haynin. Waxaa kale uu fashiliyay baa leeyahay nidaamkii uu Maraykanku ku lahaa arrimaha caalamka. Shiinaha iyo Ruushka ayaa sheeda ka fiirsanaya oo arkaya sida Maraykanku uu fashilmay. waa gartay waaya dhinaca kale haddaynu eegno hadalkan ka soo yaray wasiirka amniga Israa'iil inkastoo wadamada Yurub qaar ka mid ah laga mamnuucay inuu soo galo, laakiin nin wasiira oo xilkaasi haya hadallada caynkaasi ah in uu jeediyaa oo aan arag cid ka hadlaysa hay'ad xuquuqda aadanaha dowladihii sheegi jiray inay difaacayaan xuquuqda aadanaha ciddii arrintaasi ka soo yeertana hadduu yahay ama ciyaartoy ama fanaanna shaqadiisi uu ku weynayo, ama xitaa si kale haddii loo dhigo dadka markay xilalka qabtaan la yiraahdo fariin buu ku qoray hadda ka hor cunsuriyada shaqadiisi uu ku waayo, iyo nin isaguna saas ugu faanaya oo leh waxaan doonayaa habeenkii in la dilo 40-30 qof waxna aan laga qabanayn. maxaa lagu macnay karaa arrinta marka dhanka qaanuunka laga eego? Sida ay wax u dhacayaan wadamadii sheegi jiray in ay u heelan yihiin in ay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha oo weliba dhinaca reer galbeedka ayaa khabiirada qaar waxay leeyihiin wixii ka dambeysay dagaalka marinka Gaza ee lagu laayay dad ka badan 200 kunna lagu dhaawacay ayay ku fashilmeen marka laga reebo hay'adihii qaramada midoobay u ololeynaya xuquuqda aadanaha mas'uuliyintooda ayaa la ugaarsanaya. Hay'adihii kale ee xuquuqda aadanaha u ololeynayay warkooda cid dhegeysanaysa lama arko. Maxkamaddii dambiyada caalamiga ahayd ee soo gala joojin lahayd ee warqadda soo saartay ayaa mas'uuliyiintii xeeralyaha ka ahaa iyo kuwii kaleba culays la saaray oo dowladda Maraykanku ay go'doomin ku riday. dad badan oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii maxkamadda dambiyada caalamiga ee xaakimiintii 15 ahaa ayaa qaar ka mid ah iyadoon waqtigii howlgabka gaarin ayay howlgab galeen sababtoo ah ka cambaarla laga dhigay ilaalinta xuquuqda iyo waxyaabihii qornaa. tan kale oo ay khabiiradu tilmaamayaan waxay tahay caalamkii hadda aqoontii warbaahintii iyo caqligii ayaa ballaartay. cid walba ayaa u jeeda ninkan waxa uu ku hadlayo in qayimka bini'aadanimada uu dhaafsiisan yahay. tan kale haddii waxa uu sheegayo kale uu qof kale sheego waxa weeye warbaahinta oo dhan ayaa cambaareynaysa, laakiin waxa ayaan darro ah in warbaahintii laftirkeeda sida khabiirada qaar hadal ku dhigayaan in ay qayb ka noqdaan in aynan xadgudubka lagu sameynayo xeerarkii caalamiga ahaa iyo qawaaniintii caalamiga ahaa aanan la ilaalinayn. qaramadii midoobay oo ka ahayd ilaalada arrimahana ayada laftirkeeda ayaa gacan ku gabad taagan. waxaana muuqata adduunka siduu hadda u socdo haddii ku sii socdo in xaaladdu ay noqon doonto mid cid walba ay isku tashato, sababtoo ah sida dadka qaanuunka ku takhasusay hadalka u dhigeen in qaanuunka la ilaaliyo waxaa barbar taalla in lagu dhaqmo qaanuunka duurka haddii lagu dhaqmana haddii lagu dhaqmana waxa weeye oo qof walba xuduudiisa maalo waxaa dhacaya waxa uu dhiiro gelinayo
wasiirka amniga qaranka Israa'iil Ben Gvir oo u muuqda markuu hadlayo iyo siduu u hadlayo nin jabinaya dhammaan qayimkii bini'aadanimada iyo mas-uuliyiinta siday u hadli jireen. waa gartay haddii aynu eegno dhinaca kale warkan ka soo yaray Xuutiga ee la xiriira in ay ku xirayaan Sacuudiga inuu dagaalka joojiyo maxay arrintani ku dambeyn kartaa maraakiibta Sacuudiga waxa uu yeeri doona anaga ma naqaano laakiin Xuutiyiinta waxaa ka go'an go'doominta ay Sacuudigu ku hayaan dekedaha Xudayda iyo dekedaha kale ee ku yaala deegaanada ay Xuutiyiintu maamulaan in laga qaado ayay Xuutiyiintu rabaan mana aha markan inay baryo tahay waxa weeye sida ay hadal ku dhigeen Xuutiyiinta deked ayaan uga jawaabaynaa airport ayaan uga jawaabaynaa magaalo ayaan uga jawaabaynaa dowladda Sacuudi Arabia ilaa iyo markii weeraradan Xuutiyiintu ay bilowdeen bishii la soo dhaafay waxa ay gashay heshiisyo fara badan oo 14 dal ay la gashay ee kuleela badda cas sidii amniga looga shaqayn lahaa laba wadan oo kale oo waaweyn Turkiga iyo Pakistan heshiis ayay la gashay 3 geesood ah oo ah haddii cid la soo weeraro wadamadaasi ka mid ah inay u dhigan tahay sida xeerkii shanaad ururka gaashaanbuurta NATO in labada dal oo kale u arkayaan in wadankooda la soo weeraray hadda laakiin waxaad moodaa sida ay qorayaan warbaahinta caalamka oo dhan in heshiiskaasi tijaabadiisii ugu horeysay ay tahay in Xuutiyiintu ay duqeeyeen xaruntii ugu weyneed ee shidaalka Aramco ama shirkadii ugu weyneed caalamka ee shidaalka Aramco Sacuudigana hadda waxaad moodaa inuu weli dalban in xeerkaasi la isticmaalo xaalkana waxaad moodaa Xuutiyiintu inayna gabanaynin kana labaynaynin go'aanka ay qaateen hadday Sacuudigu rabaan waa sida hadalka u dhigeen in Xuutiyiintu ay joojiyaan weerarada ay ku qaadayaan danahooda waa in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan arrimaha Yaman isla markaasna ay joojiyaan cunaqabataynta ay ku hayaan dekedaha deegaanada ay maamusho Xuutiyiintana hadda waxaad moodaa xududooda in ay muujinayaan. waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir ayno barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh